Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada daawadayaal. Muuqaalka yar oo kooban waxaynu kaga hadli doonaa caqabada ka taagan dalka Faransiiska iyo sidee dalkii hamar dalalka lagu daydo uu u noqday dal aan xataa dalalka Afrika mudaharaadada ka dhaca aanay ka dhicin. Haddaba mudaharaadada ka dhacaya ayaa waxa ay moodaa in ay sameynayaan dad gaangisa oo aanay shacab ahayn. Sababtu waxay dhacayaan hantidii, waxay gubayaan booliska gawaadhidiisii, waxay gubayaan meel kasta oo ay hanti taalo. sidaa daraadeed madaxweynaha Faransiiska oo hadlay wuxuu yidhi maaha kani mudaharaad ee waa dagaal toos oo nagula soo qaaday. Dadka qaar ayaa waxay sheegayaan in kooxdii calooshada u shaqaystayaasha ee Faransiiska ee loo oran jiray Wagner ay ku dhex jiraanba oo ay qalalaasaan qayb ka yihiin. Haddaba si kastoo ay ahaataba qalalaasaan ayaa waxa uu ka bilaabmay wiil dhalinyaro oo 17 jir ah kaas oo soo kaxaystay gaarigaas oo aanu isagu gaadhin da'dii uu ka kaxaysan lahaa gaari. Dabadda loo ogol yahay inuu gaari kaxaysto ayaa waxa ay haystay. Haddaba kadib markii wiilka yar ay qabteen boolisku ayaa wuxuu isku dayay inuu ka baxsado, isla markiiba booliska ayaa xabad ku dhiftay. Haddaba dalka Faransiiska ayaa waxa uu ku sii siqaya xaalad aad iyo aad looga dayrinayo, taasoo ay wadamada reer Yurubna ay aad iyo aad uga sii dayrinayaan. Dhanka kale madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo doonayay inuu u baxo dalka Jarmalka ayaa isaguna joojiyay socdaalkiisaas. Dhanka kale wasiirka arrimaha gudaha ayaa sheegay in dad ku dhow 1,000 qof la xidhay halka dad ku dhow 80 qofna ay dhaawacmeen. Waxaa kale oo la sheegayaa in aad loo bilqaysanayo hantidii dadweynaha, lana gubayo guryaha iyo meel kasta oo lagu tuhmayo waxyaabo inay yaalaan qaali. Sida la arkayay ama muuqaalada qaar ka muuqataba waxaa la dhacay shirkado waaweyn oo gaadhida keena oo wadamo kale ay leeyihiin. Waxyaabaha la arkayna waxaa ka mid ah in ciidamo fara badan lagu soo daadiyay caasimadda dalkaasi Faransiiska ee Paris. Ciidamadaas oo tiradooda lagu qiyaasay in ka badan 45,000. Haddaba dhanka kale waxaa jirta islaan ayay u ah wiilka yar ee la dilay ayaa waxay ku baaqday dadka mudaharaadayaasha ama dadka rabshadaha wada in aanay joojinin ilaa iyo uu cadaalad ka helayo wiilka yar ee ayida ay u tahay. Magaalooyinka u badan ee mudaharaadku imika ka socda waxa weeyaan 3 magaalo ee waaweyn Faransiiska, taasoo ay kala yihiin magaalada caasimadda ee Paris, Lyon iyo Marseille. Dhanka kale waxaa la sheegayaa in mudaharaadadu ay u gudbeen wadamada dariska. Waxaa kale oo laga cabsi qabaa in ay ka bilaabmaan dagaallo maadaama dadkii mudaharaadayaasha ay hub gacanta ku dhigeen, gaadiid ay gacanta ku dhigeen, booliskiina ay la dagaalamayaan oo marka qaar ay arrintu gaadhayso gacan ka hadal. Muuqaallo aan lagu soo bandhigi karin baraha bulshada oo mamnuuc ka ah ayaa waxay muujinayaan in boolisku aad ay u garaacayaan dadka shacabka ah. Intaas ayaan kusoo gabagabeynaa daawadayaal barnaamijka erey kooban ee aanu ka diyaarinay dalka Faransiiska, taasoo aanu kusoo bandhigaynay xogihii u dambeeyay ee dalkaas iyo sababta uu ka bilaabmay mudaharaadan aadka u saameeyay ama u ragaadiyay dalka Faransiiska. Haddaba wixii soo kordha ee saacadaha inagu soo aadan insha Allah halkan ayaanu kusoo gudbin doonaa.